مسؤولين كلا دوان قرنكا مدح دقاماتك بعض وحبرشة جامعة كلا دوان مدح جامعة النجاح طوور ريو قدومية دكتور الشيخ حسن الشيخ علي ورسمه قلن شبياشة كلا دوان نبي ندك مدنيان يمروي دمانتي بالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي باب سبحانه وتعالى كم هاتسن مناسبة ومد فرحات بدن إلهي نوحي نكبرينا ينو توفيق ذي يتلذي نوافجيو فرحات وين بينوتها إنا ندين لو ذاقنا ساك فرحات وحان هالكن كبو قادين يا دمان dadka halkan ka qalin jabiyay labiyo dhadigba jaamacadda an-najaax dafcadii labaad oo tiro badan ah waxaan bogaadinaynaa maamulka iyo macallimiintii wax soo baray waxaan bogaadinaynaa waalidiintii ku tabcay ama taageeray ama garab galay nasiib bay tahay maanta in jaamacadaheena magaalo walba ka furan yihiin nasiib labaad bay tahay in jaamacad islaamiga burca ka furan tahay هاتي ما أنت قدوميها جامعة النجاح دكتور الشيخ حسن علي ورسمه أنا نسيب وهيري إنه برعوح كبرته يا شيخ محمد هذول كلي وهيامين دلش شيء نسيب بايدن كوه شيء شلي بيا هيد مركان برعو جامعتنا لهاي سكندرية أما الدكسية الشق سرنا شيخ بشير كلي كفرة يدكسية فرسمة عنه ما أنت اللي تبندك سرّة أي برعلات يسقط جامعة هرمر قرن كني جاري أنتي أي الحرية دين الله صانعنا وحنا ركض ضد فرق تريسا أو تشوشة هرمر كي قرن كنا أو كد جاينا وحبة قرار سلامة أين نقولي سنة وين نقولي سنة وحاس قدام بين قبسنا ما قدروا لي ما نقبلي قبيانا مالي لو مرة ما هي قبيان هو يشري دونتا لكن هرمك يوناك يناقب سوي ما كبر وعن طالع هاي أنا وسطك حريق جامعة النجاح مسؤوليتنا قصارا بي هاي حكومة دي حسب كل مية كانت دنبيي إن أنو إسقرب تاغنو قوبابينو يرجلينو سودوينو ما هاد نقنا مالي صدق arrimood baan aaminsanay xukuumadii hore kulmiye tamaanta tirtaba waxaan aaminsanahay in madaxda qaranka u shaqeysa ee xilka haysa maalinba waa meerta xilku inay diinta ka mas'uul yihiin sidii horumarka kale uga mas'uul yihiin laba in aqoontan islaamiga loo baahnaa jaamacadood sidii asalka ahayd dadka u bara saddex waxaan aaminsanayn إسرائيل حدنا آمنسنا هاي سياسات قرن كان قيبه سكال الدواني إنه كهر مري كرمكي وذي شرال يعني كريشري علماء يوم لحد الدولة إن درجات يا قيبه كان الدواني بشدو قرن كإسكو حران أياه المرجالة وعنا آمنسنين قرمنا مسلم علماء هذه الدولة هذه خلاف كل حاجة ee iskaashiga wada shaqeynta yeelan waayay waxa ku dhacay ragaad baa ku dhacay waa kuwa maanta rabshaduhu ka jiraan dagaaladu ka jiraan annagoo taa ka duulayna waxaanu garwaaqsanay inay muhiim tahay inaan culimada wada shaqeyno oo isku fikir ahaano oo iyaguna xilkay hayaan kala aan kala shaqeyno annaguna kaanu aaminsanahay kaanu hayno ay nagala shaqeeyaan ma ahayn guul wadayn sida dadka qaar u dhigo hase yeeshee waan ku bogaadinayaa culimada dalka doorkay horumarka ka soo qaateen waxay ahayd aragti hufan oo sax ah ilaa maanta waa aaminsan waxaan leeyahay wada jir iyo midnimaynu waxaynu ku soo noqonay nabad iyo deganaansho ayaynu dalkeena ku horumarinay waxaynu u baahanahay oo lagama maarmaana inaynu ilaalishano nabadgelyadeena waxa lagama maarmaana inaynu ilaashino midnimadeena iyo wada jirkeena waxaan leeyahay muhiim ma aha ummadahan inaynu wax walba ku midowno balse waxa muhiim ah wax walba inaynu isku khilaafno ummad baynu nahay
waxay la badan baynu ku kala aragti duwanaan karaa laakiin arrimaha qarankan budbiga u ah ee yoolkii abaarta waa weynaynu ka midownaa waxaan rajaynaynaa inaa horumarka qarankan wax badan ka qayb qaadan doontaan ilaa isbeddelka qarankani u baahan yahay ee dhaqan aad qayb ka noqon doontaan waxaan ku soo ururinayaa waxaan u mahadnaqayaa mar labaad sidii uu sheekh cabdilaahi baashi sheegay dadkii jaamacaddan ka qayb qaatay dhismaheeda sheekh xasan iyo doctor xasan iyo doctor faysal iyo raggii aragtidaa aaminay ee dalkoodii ku soo noqdayna waxay ka turjubeen runtii qofku waxay xaqiijinaysaa qofku wuxuu uu hamiga uu xambaarsan yahay inuu gaari karo sunnaha nolosha ku jirtaa idaa lam tasid alxayaata shay-an fa anta saa'idun haddaad nolosha waxba ku kordhin weydo dheeraad baad ku tahay waxaynu u baahanay inaynu nolosha wax ku kordhinno oo dalkeenna wax ku kordhinno oo diinteenna wax ku kordhinno ayaynu u baahannahay aad iyo aad baa u mahadsantihiin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu